Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta booqasho ku tagaya dalka Masar, halkaasi uga bilaabanaysa booqasho gaaban uu ku marayo dalalka Afrika. Wuxuu doonayaa inuu taageero u ururiyo Moscow maadaama ay reer galbeedka iyo wadamo kale ay uga careysan yihiin dagaalka Ukraine. Master Lavrov ayaa lagu wadaa in magaalada Qaahira ee wadanka Masar wadahadallo uu kula yeesho dhigiisa dalkaasi Samih Shoukry, waxaana uu la kulmi doonaa xubnaha jaamacadda Carabta. Masar ayaa xiriir muhiim ah la leedahay dowladda Ruushka, waxaana uu soo dhoofin jiray qamadiga hubka ka hor intuusan bilaaban dagaalka Ukraine. Sidoo kale dalxiisyaal badan oo reer Ruushka ayaa booqda dalkaasi. Master Lavrov ayaa sidoo kale inta uu socdaalka uu ku jiro wuxuu u safri doonaa dalalka Itoobiya, Uganda iyo dalkaasi Congo Brazzaville. Bishii Juun, madaxa Midowga Afrika ayaa sheegay in Afrika iyagoo aan waxba galaabsan ay dhibano u noqotay dagaalada ka socda dalka Ukraine. Kadib wadahadallo ayaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxa uu ballan qaaday inuu fududeyn doono dhoofinta dalagyada kala duwan iyo waxyaabaha lagu bacriminayo beeraha. Inta badan boqolkiiba 40 qamadiga laga isticmaalo Afrika ayaa inta badan ka yimaada Ruushka iyo Ukraine. Dhanka kale, tan ilaa markii uu bilowday dagaalka Ukraine, warbaahinta adduunka waxay il gaar ah ku hayaan dhaqdhaqaaqyada militari ee Ruushka iyo wadamada uu saameynta ku leeyahay, kuwaasi ay ku jiraan qaar badan oo Afrika. In muddo madaxweynaha Ruushka waxa uu xoojinayay galaangalka dhanka militari ee uu ku leeyahay Afrika. Sidoo kale meelo badan oo ka mid ah qaaradda waxa uu howlgallo xoogan oo caloosho-shaqaystayaal ay ka wadaan dalal badan oo Afrika. Dalkan uu hore hogaamin jiray Midowga Sofiyeetiga waxaa hoos u xoojinaya sare u qaadista saameyntiisa, inkastoo dalalka reer galbeedka uu Mareykanka horkacaya ay walaac ka muujinayaan waxa uu ka sameynayo gudaha Afrika. Sanadkii 2019, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ka qaybgalaya shirka Afrika Ruushka ayaa sheegay in Afrika u tahay mudnaanta koowaad ee uu siyaasadda arrimaha dibadda uu ka leeyahay. Dalalka Afrika ee dhawaana sida weyn looga dareemay joogitaanka ciidamada Ruushka waxaa ka mid ah dalka Burkina Faso, oo markii bishii January ee sanadkan uu afgembi ka dhacay dalkaasi lagu arkayay calanka Ruushka oo meelo gaar ah ka babanayay. Bartamihii sanadkii la soo dhaafay ee 2021, Ruushka waxa uu heshiisyo wada shaqeyn militari uu la saxiixday dalalka Nigeria iyo Itoobiya oo ah labada dal ee ugu dadka badan ee qaaradda Afrika. Si la mid ah Ruushka, Afrika waxaa si xoogan u daneynaya wadamo kale ee ku loolamaya awoodda sida Mareykanka, Shiinaha iyo Faransiiska. Dowladda Mareykanka ayaa hore u ballan qaaday inay dib u xoojinayso awooddeeda qaaradda Afrika, inkastoo tallaabooyin ciidamada Mareykanka looga qaadayo Afrika ay sahlan yihiin in dalalka kale ay ka faa'iidaystaan. Shiinaha ayaa dhanka kale kaabayaasha dhaqaalaha aad uga taageera wadamada Afrika intooda badan, sidoo kale waxa uu sii adkeynaya saameyntiisa dhinaca militariga. Faransiiska ayaa dhankiisa joogteynaya inuu ahaado wadanka awoodda militari ugu badan ku leh Afrika marka loo barbardhigo dalalkii gumeystayaasha. Sanadihii ugu dambeeyay, Ruushka wuxuu si gaar ah diiradda u saarayaa sidii uu galaangal muuqda ugu yeelan lahaa Afrika. Kadib markii uu dagaal ku qaaday Ukraine, waxa uu ka filayay dalalka qaar in ay taageero u muujiyaan ama ay ugu yaraan dhexdhexaad ay ka noqonayaan xaaladda markii la isugu soo hadal qaado meel ay ka mid yihiin qaramada midoobay, halkii ay garab istaagi lahaayeen dhinacyada ka soo horjeeda ayay taageeraan. Laga bilaabo Liibiya, Suudaan, Afrikada Dhexe iyo Mozambique iyo meelo kale, Ruushka wuxuu ku yeeshay saameyn la taaban karo. Inta badanna waxa uu gacan siiyaa la dagaalanka kooxaha fallaagada ama ururada jihadoonka. Ciidamada caloosho-shaqaystayaal ee howlgala lacag lagu qaato ayaa ku sugan dalal ay ka mid yihiin Liibiya, Afrikada Dhexe, Mali, Guinea, Angola iyo Suudaan. Ruushka ayaa Suudaan ka doonaya in ciidamadiisa badda ay si toos ah u isticmaalaan Badda Cas, gaar ahaan waxay Moscow danaynaysaa dekedda Suudaan.